noocyada qaflada waxaa ka mid a noocyo fara badan oo kalena ay ka farcamayaan oo tiro badan oon la koobi karin addoonku inuu noqdo mid moogan xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yadkuru allaha biqalbih ilaahay qalbigiisa kuma xuso laysa fii qalbihi tacdiimun lilah walaa maxabbatun lirabbih walaa khawfun walaa rajaa walaa istixyaa'un min allah qalbigiisa mar walba kuma jirto weynayn ilaahay u weynaynaya iyo maxabbiyo kalgacayl ilaahay u hayaa iyo baqa ilaahay uu ka baqanayo rajo uu ka qabo rabbi raxmadiisa iyo xishood ilaahay uu ka xishoonayo xumaanta ka celiya xataa idaa dacaa laa yustajaabu ducaa'uh faqad qaala nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha laa yaqbalu ducaa'an min qalbin gaafilin lahi ilaahay duca kama aqbala buu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qalbi gafladaysan oo moogan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mashquulsan oo adduunyo ku mooraroobayo ku maqan ilaahay buu carabka ka baryaya gacmahana kor buu u taagaya wa qalbuhu gaafilun can illah qalbigiisuna ilaahay waa moogan yahay laa yastaxdiru cadamata allahi subxaanahu wa tacaala walaa raxmatahu walaa fadlah walaa ixsaanah intaa midna ma xusuusna duca lagama aqbalaya buu rasuulku calayhi afdalu salaati watasliim waxaa ka mid ah algafla inuu carabku noqdo mid ka ingegan xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu xusin ama xuskiisuba uu ku yar yahay laa yaqra'u qur'aanan walaa yuxaafidu cala adkaari الصabaaxi wاlmasaa wagayri dalika min aladkaar qur'aanba maba akhriyo gabal dhacay iyo waa baryey musxafkaba ma furo dushana kama akhriyo hajara alqur'aan qur'aankii buu ka hijroodo u gooyi ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma xuso subxii iyo galabtii oo adkaartii iyo ducooyinka nebi maxamedina baray iyagana warba uma hayo hadduu doono dushuu ka haya laakiin waa gaafilun canha waa moogan yahay oo ma xusuusna وكذلك في جميع أحواله أمره على عكس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام xaalkiisu wuxuu toos ama si dhammaystiran u khilaafsan yahay siduu ahaa xaalkii rasuulka qaalat caaisha radia allahu canha kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam yadkuru allaha calى kuli axyaanih nebi moxamed wuxuu ahaa ilaahay mid xusa xaal kaste fii jamiici alawqaat والأمكنة والأزمنة وقت كسته iyo meel kaste iyo xaal kasto uu ku jiro وكان من أشد الناس ذكرا ودعاء لربه في حال الشغل بالحرب xaaladda dagaal uu ku mashquulsan yahay ee dadku ay baqanayaan waxaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam dadka ka u duca badan iyo xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo ilaahay baryadiisa iyo xuskiisa ayaa lagu gaadhaa guul